kadib waxay bini'aadamka ayaa wuxuu u baahan yahay 3 shay si uu u noolaado. Haddaba 3daas shay ayaa waxay kala yihiin: tan ugu horeyso uguna muhiimsan ayaa waxay tahay hawada. Qofka bini'aadamka ah ma noolaan karo 3 daqiiqo hawo la'aanteed oo waa uu dhimanayaa. Haddaba kaalinta labaad ayaa waxaa ku jiro biyaha. boqolkiiba 60 ka mid ah jirka bini'aadamka ayaa wuxuu ka samaysan yahay biyo. Dareeraha noocan ee nolosha waa muhiim oo celcelis ahaan bini'aadamku wuu noolaan karaa ilaa 3 maalmood la'aantood. Iyo ugu dambeyntii cuntada, inkasta oo qofka bini'aadamka uu noolaan karo 3 toddobaad la'aanteed, iyadoo jirkeena uu u baahan yahay cuntada si uu u helo nafaqo, tamar, korriimo iyo caafimaad. Waxay tahay sababta horumarka adduunka lagu sameeyey kadib in dadka maanta ay u bukoodaan si aan ebid loo bukoonin, cudurradiina ay zaid u sii siyaadeen. Heerka burnaanta wuxuu sare u kacay 100% 30 sano ee lasoo dhaafay. Xitaa si dhaqso badan ayuu hadda hore ugu sii kacayaa ama kor ugu sii kacayaa. Macadka qaran ee kansarka ayaa sheegay in 38% dadka ah lagu ogaan doono kansar inta ay nool yihiin, taasi oo ah ku dhowaad kala bar adduunka. Iyada oo ay weheliso dhammaan dhibaatooyinkaas caafimaad ee dadka badani maanta haysato, ayaa sidoo kale la macaamilayo niyad jab iyo walaac. Balse su'aasha meesha taallo ayaa waxay tahay: cuntadu sidee bay uga qayb qaadan kartaa ama u keeni kartaa cudur, niyad jab iyo walaac? Haddaba si aan u fahanno caqabadaha aan wajahayno maanta, waxaan u baahannahay inaan ka feejignaano waxa ku soo kordhay caalamka, sida tiknoolajiyadda, warbaahinta bulshada, filimaanta, muusigada, cuntada, biyaha iyo hawada. Waxyaabahaas oo dhan qayb ay ka qaataan, sidaad ku baran doonto qaybo kale insha Allah. Balse maanta aan diiradda saarno cuntada. Maanta waxaan ku noolnahay adduunyo raasmaal ka buuxaan hunguri, cudur iyo khiyaano. Lacagtu waa waxa ugu weyn ee dhiirigeliya warshadaha cuntada. Caafimaadkaaga iyo wanaaggaaga ma ahan. Warshadda cuntada waxay siisaa sumad qurux badan iyo muuqaalo alaabooyinkooda ah si ay macaamiisha ugu soo sabaan inay cunaan waxyaabaha gebi ahaanba aan dabiiciga ahayn. Haddaba aan tusaale ku siiyo: ma ogtahay in dhadhanka vanilaaga iyo dhadhanka loo yaqaano raspberry ay ku badan yihiin badeecooyinka, iyada oo loo adeegsanayo isku darka dheecaanka iyo kaadida xayawaanka loo yaqaano PFAS-ka? oo tani waa wax sharciyeysan, macnaha waa sharci oo dowladda way ogashahay. Saynisyahanno iyo shaybaaro ayaa abuuri karo dhadhan macmal ah oo been abuur ah, nooc kasta oo aan ku darin miro dhab ah. Haddii ay deeqsi yihiin, waxay ku dari doonaan dhowr dhibcood oo miro dhab ah si ay uga faa'iidaystaan sida dabiiciga ah ayna ugu iibiyaan kuwa ka fogaada dhadhanka macaan ee aan dabiiciga ahayn. Cunooyinka inta badan laga baaraandegay oo la baakadeeyo waxay aad iyo aad ugu adag tahay in ay ku daraan wax nafaqo ah oo jidhka u fiican. Sababta dad badan oo dunida maanta joogo ay u gaajoonayaan intii ay cayilaan. Laakiin sidee taas suurtagal tahay markay caloosha buuxdo, micnaha marka aad dheregsan tahay? Balse nasiib darro waxaa ka jirtay warshadii cuntada oo may ku darin wax nafaqo ah. Sokorta la warshaday ayaa haddaba waxaa laga helaa wax walba oo yaala dukaamada waaweyn. Ee ay ka helaan sokorta la sifeeyey ayaa magacyo badan oo kala duwan loo bixiyay si uu macaamilka uusan u ogaan warbixin. Haddaba waxa sokorta la sifeeyey ay samayso ayaa waxay tahay: waxay kicisaa rabitaanka cuntada, waxay ku dhiirigelisaa macaamilka inuu cunista badiyo. Laakiin maadaama ay cunnada lahayn wax nafaqo ah, jirku wuxuu sii wadaa baahi badan. Dad macaamiil saafi ayaa ku sugayay dhadhanka macaamilka ah iyo kuwa been abuurka ah, kuwaas oo u horseedi doona jirro iyo daal. Marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay: maxaa xal ah? Waxaan ku dhiirigelinaynaa daawadayaasheena inay si dhab ah uga fikiraan waxa ay jirkooda gelinayaan ama cunnada ay cunayaan. Intee ay qaadanaysaa, balse waxaad isku daydaa inaad baratid ama aad ogaatid nafaqada saxda ah ee jirkaaga u muhiimka ah ama cunnada saxda ah ee loogu talagalay inaad cuntid. Jirku uma baahna cunno badan, balse wuxuu u baahan yahay cunto tayo leh. Cunto tayo leh oo dhab ah waa cuntada dabiiciga ah oo habka
uu Alle u sameeyey subxaanahu wa tacaala noogu talagalay. Waayihii hore wax walba dabiici ay ahaayeen, laakiin mar kadib waxay soo saareen hormoon been abuur ah oo la beddelay, hooyadoon ahaan loo beddelay cuntooyin ay ka buuxaan cayayaanka iyo sunta. Dadka badankood way ka feejignaadeen, laakiin waxay hoos u dhigeen qiimaha cuntooyinkan aan dabiiciga ahayn. Kadib ayay dadka bilaabeen inay iibsadaan cuntooyinkan aan dabiiciga ahayn. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa oo ina xasuusinaynaa in ay jiraan laba nooc oo cunto ah oo loogu talagalay muuminiinta. Midkood waa xalaal oo qof kasta oo muslim ah ayaa garanaya, laakiin imise qof ayaa adeecday Ilaahay markuu noo sheegay in aan cunno cuntada saafiga ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, bani aadamkow wax ka cuna wixii dhulka ku nool ama ka baxa, hana raacina shaydaanka, waayo isagu waa cadowgiina kan ugu weyn.